haddana waqtigoo yar dadkii waxaan ku soo dhawaynayaa boqor burhaan boqor muuse falyatafadal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو. مدحوينها دولة بنتلاند يمروديسا مدني عبد الولي علقاس عبد الولي محمد علقاس. مسؤولين لبدا قولة دولة فدرالك دولة بنتلاند صلاة دينتا وحقرتك دمان دميرة بعد الصحافة علماء دينك ciidamada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan ka bacdi walaalayaal mudane madaxweyne waxaan halkan ka oran lahaa ikhyaartii halkan ka hadashay ayaa tiri waad garan kadhaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan doorashadaadii iyo dhismihii dowladdan federaalka taageeradii iyo kalsoonidii iyo jeclaantay u qabeen. waxaan filayaa sanad wax yar ka dhiman yihiin ayaama ka dhiman yihiin ayaa ka soo wareegtay. sidii iyo si ka badan ayay taageeradii iyo kalsoonidii iyo jeclaantii meel ka siisaadan ayay ka maraysaa. indhahaga ayaadna ku aragtay intii muddadii koobnayd oo dhowrka cisho ahayd aad joogtay puntland. maantana waxaan filayaa reer qardho iyagoo rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel aan loo kala harin ayay kusoo dhaweeyeen. aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maatankaaga. waxaan leenahay soo dhawow waddankaagii dadkaagii aada madaxweynaha u ahayd oo soomaali oo dhinac daraf ilaa daraf raas kamboni ilaa iyo raas casayr ku taageeray ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba kugu soo dhaweynayna. sidaad la socotaan mudane madaxweyne xorriyadda soomaaliya waxaa loo soo maray dhib weyn. waxaa loo soo maray dhiig haliyeeyo iyo waxgarad soomaaliyeed inuu ku daato. waxaa loola dagaalamay gumaystayaashii waddankan soomaaliya muddada dheer soo gumaysanayay. qarannimadii iyo jiritaankii soomaaliya muddo dhowr iyo 20 sano ayuu mugdi galay. waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay nasiibkaaguna ku siiyey inaad madaxweynihii labaad oo markii laga baxay dowladihii gumeel gaarka ahayd inaad noqotid. waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay madaxweyne cabdiweli maxamed caligaas oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee ka saaray dowladdii gumeel gaarka ahayd soomaaliya ee isagii madaxweyne sheekh shariif. run ahaantii xilku waa isqor isu dhiib. maanta adiga iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa gacanta ku haya taladii iyo soomaaliya hoggaankeedii. run ahaantiina muddadii koobnayd oo aad xilka hayseen wixii aad qabateen oo qarankii soomaaliyeed aad kusoo kordhiseen waa wax markhaanti ma doonta ah. waxaan leenahay ilaahay haydin garab galo, ilaahay haydin garab galo. midnimada soomaaliya iyo wadajirkeedu adduunka oo dhan baad arkaysaan
yurub oo dhan baad isu tegaysa cid waliba waad aragtaan soomaaliya wadajirkeedu maslaxadeeda iyo danteeda ku jira. waxaan jeclahay insha allah biidni illahi kariim inay noqoto soomaaliya oo qarankeedii iyo jiritaankeedii iyo sharafteedii inay insha allah waxyaalaha muuqda insha allah in la gaaro oo inagoo nool oo fiyo oo caafimaad qabna inaynu la kulanno soomaaliya halkan iyo meel kasii wanaagsan gaadha insha allah. runtii dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadaba waxaa la gudboon waddankani wuxuu u baahan yahay dib heshiisiin inay noqdaan furihii iyo dadkii miftaaxa u noqon lahaa dib heshiisiinta. dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u soo jeedinayaa dib heshiisiinta inay xoogga saadho qarankii soomaaliyeed sidii dib heshiisiin dhaba loogu samayn lahaa. taasina waxay u noqon kadhaa kalsooni iyo muxuu ummadda soomaaliyeed inay insha allahu biidni illahi kariim inay ka booga dhaydaan dhibaatadii iyo burburkii xanuunka badnaa aynu soo marnay. shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay barbar istaagaan dowladda, inay gacan siiyaan, inay ka ilaaliyaan wax allaaliyo wixii hagardaamo ku noqon karaa, liannahu maslaxaddeenna iyo danteenna baa ku jira. waynu aragnay waqti dheer waynu ku jirnay burbur oo magaceenni la waayey iyo sharafteenni. inaynu marka taa ka miro dhalino insha allah biidni illahi kariim aynu gacmaha ku adkaysano inaanan dib u noqon, inaan shacabka soomaaliyeed dib u dhac dambe uusan ku dhicin insha allah biidni illahi kariim. shacabka taas ayaan kula dardaarmayaa, arrinkaas ayaana runtii ku boorinayaa. dowladdana siday xilka u qaadeen oy kitaabka ilaahay ugu dhaarteen inay habeen iyo maalinba ku soo jeedaan sidii ummaddani dhibta uga bixi lahayd. jamhuuriyaddii soomaaliya, gobolladii soomaaliya 18 gobol ahayd, inay gobol walba uu helo xaqiisa, inuu helo gobol walba waxa uu u leeyahay insha allahu biidni illahi xaqa uu leeyahay inuu helo. taas waxa weeye madaxweyne sidaad ula dagaalantay corruptionka, sidaad ula dagaalantay waxyaalaha dib u dhacaad keeni kara soomaaliya, inaad iyadana qorshaha ku darsatid in xuquuqda gobolladu si siman ay u gaadho. gobolladu siday u kala baaxad weyn yihiin, siday u kala muxuu ahay weyn yihiin, in gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba inay gaadho cadaaladda iyo horumarka iyo mashaariicda waddanka imanaysa. madaxweynaha iyo dowladda isaga iyo ra-iisul wasaare khayre arrinka ayaan usoo jeedinayaa. dhammaanteen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku boorinayaa shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo inay gacmaha isqabsadaan, inay walaalnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo sharaftoodii inay soo ceshadaan, inay insha allahu biidni illahi kariim ilaahay tala saarsadaan oo ay ku midoobaan xarigga ilaahay, cabsida rabbi. ilaahay qur-aankiisu ku yidhi wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. tafaraqa iyo kala qaybsanaanta iyo dib u dhaca cidda ama siyaasi ha noqoto ama waxgarad kale ha noqoto, cid allaaliyo ciddii ka shaqaynaysaa ha ogaadeen inay marka hore jebiyeen aayaadka qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey oo munasalka ah oo ilaahay inugu amreeyo inaynu xariggiisa ku midowno. wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. cid kasta oo tafaruq keenaysa ha ogaato inay arrinkaas ay dhinac madhayn. run ahaantii munaasabaddan wixii laga odhan lahaa iyo sidii ay mudnayd wax badan aan ka odhan lahayn waan jeclaa. in badan oo aan salaami lahaa sida siyaasi salaad cali jeelle oo saaxiibkaya oo aan isleeyahay waa waxgaradka iyo hormuudka ummadda soomaaliyeed. waa salaamayaa mar labaad. sidoo kale inkastoo aan hadda uusan i muuqan tarsan
siyaasiyiinta kale waxgaradka golayaasha dowladda oo madaxweynaha la socday iyo hal abuurka sida ciibo oo kale dhammaan waxaan leeyahay soo dhawaada aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan rabaa inaan halkan madaxweynaha jamhuuriyadda aan ka guddoonsiiyo hadiyad aan ugu talagalnay oo ah billad maamuus sharaf iyo isaga iyo madaxweynaha dowladda puntland inay soo istaagaan insha allah